maanta mawduuceena waxaanu kaga hadlaynaa mid ka mid mucjisooyinkii nabigeena sallallahu alayhi wasallam. mucjisadaas oo ka warramay 1400 oo sano ka hor iyadoo iminka laga joogo 14 qarni. magacaygu waa Mohamed cali ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. cimiladu aad bay u kulushahay isla dalkaasi Australia, wuxuuna dabka kacay kaymaha dalkaasi. dabkaas oo gubay meelo badan oo dalka ka mid ah. ugu yaraan 28 qof ayaa ku noofay ku dhintay dabkaas. gobolka South Wales waxaa ku burburay 3,000 oo guri. dad badan waxay sheegaan in sababaha keena dabkaasi ay tahay cimilada oo isbedeshay, jawiga oo aad u kuuliyo danabyo ku dhaca kaymaha. sidoo kale dowladda Australia ayaa ku eedeysay in dadka laftoodu ay sababaan oo ay ku lug leeyihiin gubashada kaymaha iyo in dabku sii fidaba, iyadoo arrintaana dad badan loo xidhay oo loo haysto. si kastaba ha ahaatee, cilmi baadhis cusub ayaa tibaaxday in shimbiraha qaarkood ay sababaan fidinta dabka. shimbirahan ayaa afkooda amaba lugahooda ku soo qaada dhuxul amaba laan gubanaysa, waxayna ku tuuraan dhul bannaan oo aanu dabku soo gaadhin, taasoo micnaheedu tahay in shimbirahan ka qayb qaataan fidinta dabka. shimbirahan waxaa loo yaqaanaa magaca Kate iyo Falcon, kuwaasoo luqadda afka carabigana loo yaqaano al-xaddaa, af Soomaali ahaana noqonaysa fargoosato. haddaba qof goobjooge ahaa ayaa dhahay, waxaan arkay shimbirta oo ul gubanaysa ku soo qaaday lugaheeda kuna tuurtay meel aan dabku soo gaadhin si ay u eryato ugaadheeda. su-aasha la isweydiinayo ayaa shimbirahan moogyihiin waxay sameynayaan mise warba uma hayaan. haddaba cilmi baadhayaashu waxay dhaheen marka laga duulo si xeel dheer loogu fiirsado dadkii goobjooga ahaa wixii ay arkeen, shimbirahani waxay u baraareen inay dabka fidiyaan iyagoo garanaya. haddaba isku soo wada duuboo shimbirta fargoosatada loo yaqaano waa shimbir aadamaha dhib ku haysa, taasoo ay habboon tahay in laga hortago dhibaatooyinkeeda. ma ogtahay in shimbirta nabigu sallallahu alayhi wasallam ka warramay 1400 oo sannadood ka hor? rasuulka ilaahay sallallahu alayhi wasallam waxaa laga soo wariyay xadiis saxiixa. waxaa laga soo wariyay Caaisha, ilaahay ka raali ahaadee, oo ahayd xaaskii nabiga sallallahu alayhi wasallam, inay tidhi, waxaan maqlay rasuulkii ilaahay oo leh, 4 ayaa dhammaantood ah faasiqiin oo la dilaya xilliga xurmada iyo xalaashaba: fargoosatada oo ah shimbirweega leedhka, tukaha, jiirka iyo eega dadcunka ah. shimbirkii fargoosatada ee nabigii ilaahay sallallahu alayhi wasallam amray in la dili karo. waxaa maanta caddaatay xikmad ka mid ah sababaha loo dilayo shimbirkaas, waana mucjiso nabigii ilaahay oo ka warramay muddo laga joogo 14 qarni.